kadib baaritaano caafimaad oo shalay iyo maantaba lagu sameeyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo dabayaaqada toddobaadkii ina dhaafay laga helay caabuqa COVID-19 ayaa si isku mid ah jawaabihii shalay iyo maantaba waxa ay noqdeen negative taasi oo muujinaysa in madaxweynaha laga waayay guud ahaanba cudurka COVID-19 madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo shacabka Soomaaliyeed u diray fariin ku saabsan xaaladiisa caafimaad abaaraha dalka ka jira iyo hambalyo ku aadan toddobaadka xorriyadda iyo midnimada ummadda ayaa tilmaamay in baaritaano caafimaad oo la xiriira COVID-19 oo lagu sameeyay ay muujiyaan in laga waayay koronaha sidaas awgeedna uu dib u fariisan doono xafiiskiisa si uu u guto waajibaadka shaqo ee horyaalla waxaan ugu hambalyaynayaa hambalyada ciidda isbuuca xorriyadda ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay joogto ay dabaaldegayso waxaan rabaa anigana inaan farxadooda farxad ku daro oo aan u sheego inaan caafimaad qabo alxamdulillaah baryahan waatay hore loo sheegay inaan xanuunsanahay waa run cudurkaas COVID-19 laga helay ugu dambeyn hadda hadii la test gareeyay laba jeer la igu celiyay laba test laga qaaday inaan caafimaad qabo ayaa markii daba labadiiba negative ay noqdeen waa caafimaad qabtaa leeyahay alxamdulillaah dadka Soomaaliyeed waxa uu sheegay talaalku waxbuu taraa aniga saddexdii talaalba waan qabay labadii caadiga ahayd iyo kii boosterka ahay marka waxaan dareemayaa qadarta rabbi iyo ducada dadka iyo ilaahay naxariistiisa ka sukow talaalku inuu wax badan taray waa dareemayaa dadka Soomaaliyeed inay istalaalaan ay cudurkan iska talaalaan meel kastoo ay joogaan waa ku dhiirigelinayaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud shantii maalin ee la soo dhaafay ma sameeynin haba yaraatee wax qaabilaad ah oo mas'uuliyiinta iyo bulshada qaybaheeda kala duwan ah maanta ayuu madaxweynuhu dib u bilaabay qaabilaadda mas'uuliyiinta isagoona kulankii ugu horeeyay la qaatay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre oo shalay xafiiska si rasmi ah ula wareegay madaxweynaha ayaa ku booriyay muwaadiniinta Soomaaliyeed inay xoogga saaraan sidii loo samata bixin lahaa dadka Soomaaliyeed ee abaaruhu ku saameeyeen gobolada kala duwan ee jamhuuriyadda dabaaldegga xorriyadda iyo inaan isku darno ayaana laga rabaa gargaarka ummadda Soomaaliyeed ee abaaruhu ay dhibaateeyeen aan u gargaarayno oo aan u gurmanayno inaan aad iyo aad ayadana aan la iloobin farxadda waa in lagu daraa deeqsinimada ummadda ay leedahay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa hadda wixii ka dambeeyay si rasmi ah dib ugu howlgeli doona xafiiskiisa isagoona bilaabi doona qaabilaadda ballamaha uu la leeyahay mas'uuliyiinta heer qaran kuwa beesha caalamka iyo sidoo kale muwaadiniinta Soomaaliyeed Shucayb Maxamed Cali warbaahinta qaranka madaxtooyada dalka